birtumistu waxa ay ka mid tahay farsamooyinka ugu muhiimsan dunida sababtoo ah dadka ka shaqeeya waxa ay soo saaraan qalabka kala duwan ee aanu aadanuhu sinaba uga maarmin. Soomaalidu waxa ay ugu yeertaa tumaal oo lagala jeedo birtume waanay takooraan sababta kaliya ee loo leexinayana waa farsamadooda. dadka qaar waxa ay sheegaan in Soomaaliya ay tahay meesha kaliya ee qof aqoontiisa lagu faquuqo. dunida kale qofka farsamo yaqaanka waa la xushmeeyaa, aqoontiisa ayaana lagu tixgeliyaa, mudnaan gaarana waa la siiyaa, waxaana loola dhaqmaa si aad uga duwan sida loola macaamilo kuwa Soomaaliya. farsamo yaqaanada dalka iyaga oo culayskaas oo dhan dareemaya ayay dhididkooda qubaan, muruqoodana maalaan, qalab kala duwanna soo saaraan. digsiyaal la sameeyaa, midiyaal jiro, taaboodina jiro, waxaa sameynaa dhariyo, waxaa sameynaa haaman, wax ayuu nooc masaar wax walba sameeyno oo Soomaalida ay ku dhaqanto oo shacabka u adeegnaayo dad shacabka kamidaan. waxyaabaha ay soo saaraan oo u badan kuwa jikada ama kushiinka lagu adeegsado waxaa lagu tilmaamaa in ay ka tayo iyo tabar badan yihiin kuwa la soo dhoofiyo. sidaasi oo ay tahayna waxa ay ka cabanayaan suuq xumi iyo dadkii oo u leexday iibsashada maacuunta dhaldhalaalaysa ee dalalka kale lagu soo farsameeyay. anigu disyaasha sameeyno waxa waa disyaal xoog leh oo wax tar leh kuwa dibadda laga keenay isku mid ma aha, kuweena tawar badan oo xoog badan. marka saas ay taana waxa waa sawir dibadda aanu ga qayn badan dadka waxay rabaan wax cusub ay raacaan oo bacdaysan oo kuweena anagu bac kuma jirto. macaamiisha ku xiran ragga biraha tuma ayaa ka marag furaya adayga iyo awoodda ay leeyihiin qalabka ay farsameeyaan. waxaana soo raadiyay mindida iyo geedaha buskudka lagu sameeyo, waxay kala duwan yihiin. geedaha buskudka lagu sameeyo kuwan waa fiican yihiin, kuwa dibaddana ma fiicno, laba barkadu way kala jawaayaan. mindidana way afbeelay, laakiin tan wax hadday afbeesho waa la keenaa, macnaha waa la soofaa. laakiin dadka iibsada qalabka iyo alaabaha dibadda laga keeno waxa ay qiil u hayaan in ay ka leexdaan farsamada gudaha. alaabtan kolba alaabta dalka ma dhammaystirno, waxyaalo badanaa ka maqan. alaabtan dibadda waxaa laalo xaartaa keeli kartaa garaafooyinka, saxamanka, qaandooyinka, weelasha faraxalka, weelasha babaayga oo kaleeto, bakeeriyaasha galaasamka cabitaanka oo kaleeto. alaabteena ma dhammaystirno. mid ka mid a ragga midiyaha tuma oo ay kalsooniye ka muuqato ayaa ku doodaya in wax soo saarkooda aanan haba yaraatee la barbar dhigi karin kuwa dalalka qalaad laga keeno. shaqada aniga soo saarno iyo shaqada dibadda isku tayo ma ah. shaqadana tayo fiican soo saarayno maadaama ay dadka laga hadda u bateen alaabta iyo dibadda macnaha inay isticmaalaan laba bari ka bacdi natiijo inay noo keenaan inoo soo bana leeyihiin isku soo saar ma leeyahay. waxaa warkiisa rumaynaya isla macaamiisha ku xiran dukaamada lagu iibiyo qalabka la soo waarido, waxaanay qirayaan tayada qaar ka mid a agabka ay birtumayaashu soo saaraan. midiyaha dibadda kolbo haddii aad gadatid bashash ku jaratid amba canjeerada aad ku bixisid oo kaleeto tayo ma lahan, weejabe boola ka faniinaya. badanaa waxaa xiiseenaa midiyaasheena oo dalka lagu sameeyo, laakiin alaabta bilicda wanaagsan alaabtan waa burjikada ama girgirada tan dibadda laga keeno iyo kuwa gudaha lagu sameeyo farqi weyn uma dhexeeyo. haddana kuwa la soo dhoofiyo ayaa wax ka badan 10 jeer ka lacag badan kuwa gudaha, dadkuna kuwaasi qaaliga ah ayay aad u iibsadaan. midaan camal dalka lagu sameeyaa waa burjiko oo ma aragtay markaas waa burjiko caadi ah, waxay ka samaysan tahay qajafay ka samaysan tahay oo bacweyne ah. awal tan baa isticmaalayna qiimaheedana markaan ka hadlo waa $3 ilaa $2 iyo bar. tanna haddana waa ma aragtay jakaaka la yiraahdaa, Ethiopia waxaa laga keenay Kenya. marka waxaa qiimaheedana waa $35, alaasti waa $32. marka inta badan farqiga u dhaxeeyo waxay tahay waxa yareysaa tan burjikada tan dibadda laga keenay waxa yareysaa dhuxusha
dadka siday ku tilmaameen inta badan markaa ku shubtid xoogoo dhuxul ah waxaad ku karsanaysaa qado quraac casho. dunida kale qalab dhaqameedka gudaha lagu farsameeyo ee soo jireenka ah aad ayaa loo jecel yahay loona iibsadaa bal ee kuwa dibadda laga keeno iyaga ayaa ka qaalisan taasina waxa ay sii dhiirigelisaa farsamayaqaanada agabkaasi soo saaraa kuweenna iyaga oo aan suuq fiican iyo qalab casri ahba haysan ayay farsamadan la yimaadeen maxaad u malaynaysaa haddii ay heli lahaayeen warshado yaryar amaba ugu yaraan qalab dunida maanta la jaanqaadi karaa ma jirto dawlad iyo dhinacyo kale oo taageero iyo tabantaababa siiya shacabkuna ma dhiirigeliyaan in ay sii niyad jebiyaan mooyaane intaa waxa ay ku socdaan dadaal iyo dhabar adayg dheeri ah oo ay iyagu la yimaadeen